السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحافة وسود ويننا إن بدنا سوينا عرق مدير بان حلكها وذي ورحبيس كتشوبي بريا دور عشاء يتناول كراهنا إذا نوى تبسلنا كراهنا أنا واتبعي بعد المدة يروح يشتري مكان إنه نسقورها نعمان إذا كيري مركب كوبان وحيرتها وحول وحول ما يهضر بالجريدة من الجريدة ضلك جديس ويفي عنتها ويسوانتي ويتران ضل والبا كعبشو يو حيارة هذه ترى الجريدة الصامية وترها تدي استلاء ولا وقف استلاء تيجانا وهذا بركذا أمرنا لي رب راسكو قبصة بقولك بقولين الجريدة الكوناسنتي حاجة سياسة صدق حزب قرن باكري وتشوجة ودرك السياسة كمسؤولة لا هو معارض إنه هو حاكم وهناك وكيل حل كل الحسارية حاكمك حزب الحاكمك إنه حزب يد معارضك ولا رقمه سي احترام يا كرامة له قيم تود الشرع الجسيي إن ذلك تردي سياسة وحكوا هذا أن أي قاطان أنا تادي أربعة وهاي وضع شقيني أو واي سرقني ولو حزب ودري وكلا أنا حيلك يجو أنا أعرف فرفرني مرواي سرقني سوونا كسبانو كوكا تجني إن نسوا نقونا وضع شقيننا وكل شيء ديار هوانا حزب قوعد وضع شقين وعمانا قرحيس وحنوقع الله تساله هذا دليش هذا حلكوده معارض القتال وأنا شقين maalintii la idaariyay waxa isbedelay oo dhamaaday ololihii siyaasadda ee lagu tartamayay waxa la idaariyay inaan dalka oo dhan madaxweyne u ahay oo xisbigii soo saaray iyo kii doortay iyo kii aan dooran aanu simanahay waana waxaynu ku dhisanahay dimuqraadiyadda dowladnimadu nuxurkeedu waa inta mas'uuliyadaas anay saarinta waana fulinayaa bini aadam haddaan gafo toosin baa lagu leeyahay waxaan u soo jeedinayaa dadka aan siyaasadda sharcigu u siinin inay axsaab noqdaan ama af ummadeed ay ku hadlaan inaanay siyaasadda ka abuurin wax aan jirin mujtamaceenu waa badanya dad badan baa dadka hogaamintooda qayb ka qaata si aynu dhisanahay mujtamaceenu culimadu qayb weyn bay ku leedahay dadka tujaarta lacagta la businessmankuna cod weyn bay ku leeyihin bulshada rayidka civil society-guna cod weyn bay ku leedahay madax dhaqameedkuna cod badan buu ku leeyahay intaba waa gol lahado markaynu iskaashanayno inuu wax ku dhisanayno waa wanaagsan tahay waa tala badan waxaan lagu soo ururiyaa xisbiyaduna kolba xisbiga talada haya ayaa lagu soo ururiyaa waxaan leeyahay qof kastoo muddo karo hadlaya da ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan ama xil ummadda u hayo ku doonaya ahaadee markuu hadlayo wuxuu ku hadlaya ummaddu baa qiimanaysa waxaan soo jeedinayaa miidiyaha imika warbaahinta waxaynu isu marino ee dad waayeela oo nabad laga filayo iyaga kuwa horseeda iyo midnimada ay tahay ku hadlayaan aakhiradooda iyo adduunkooda midna uma wanaagsana mujtamacuna uma wanaagsana xisbigana kagama wakiilaha xukuumadda kagama wakiilaha waa inay wanaajiyaan waxay ummadda dhexdeeda gudbinayaan intaa u dhaafi maayo odayaasha hadduu sheekh yahay hadduu madax dhaqameed yahay hadduu aqoon-yahan yahay hadduu midna baacbitira yahay hadduu civil society yahay hadalkeenu ku hadlana waa mid qaranka u daran hada haddii la isdhaliilayana midaan midnaha ka baxsanaan waa inuu hada wixii fidna iyo tafaaruqa waa ka soo horjeednaa xil baa naga saaray inaan ka helana dadka fitmadooda laakiin qof walba jaaliskana waa siinaynaa waanu ka codsanaynaa in la wanaajiyo dadka sidii la sulkeen lahaa ee afid naga dhex abuuray taa hadallada duubduulka ee maanta dhexdeeda ka jira waan kale nabadgelyada waxaan uga soo gudbayaa inaga iyo soomaaliya somaliland iyo soomaaliya dhibaato ayaa jirta imka dhexdeena dhibaatada anagu eed ku malihin haddaynu somaliland nahay somaliland caalamka waxay ugu baaqday oo adduunkao dhan gaarsiisay inay somaliland kusoo duushay caalamka waxaan u sheegaynaa somaliland dhulkeedii inaanay ka bixin ciidankeedu wuxuu ka guuray goob ka mida somaliland gambaruu ka dhaqaaqay tokaraq buu tegay labadu waa somaliland ciidanka somaliland iyo dowladda somaliland iyo shacabka somaliland cidna ka magansan maayaan dhulkooda
hadday wax ka qabsanayaan iyo hadday meel ka degayaan waa Somaliland caalamka waxaan u sheegaynaa kumaanaan xadgudbin Soomaaliya xuduudkii 1987 la sameeyey ee dowladii isticmaalka sameeyeen ee Afrika oo dhan ku dhaqantay Afrika oo dhan u dhaxeeya kamanaan xadgudbin kamana gudbayno colaad uma jeedo inaan maanta colaad cidna la galno uma jeedo noodan maaha iyagana wadan maaha maanta Soomaaliya iyo Somaliland labaduba colaad ma taagaya dhaqaalahoodu waa yiri burbur badan bay ka soo kabanayaan dadkoodu maanta wuxuu baahan yahay horumar biyo caafimaad waxbarasho shaqo Somaliland waxaan u sheegaynaa caalamka oo dhan iyo Soomaaliya annagu dagaal diyaar ma leh dalkayga joognaa waliba halka imka ciidanka degan yahay tukara 70 kilomitir buu xadka u jira dastuurka Somaliland wuxuu qorayaa in xukuumadda Somaliland ay soo sugto xuduudaha Somaliland xilkii la yiraahdo kamid dastuurka ay faraayeen baarlamaanka ay gudaba jooga shicibweynaha ay gudaba jooga war xuduud la taga waxaan ku doonayaa xuduudana ku tagnaa nabadgelyo Soomaaliya garan bayno abaabulka ka socda ee qabaliga salka ku haya ee ciidamada la soo dhooway wax alliya wax maanta dagaalka loo abaabulay garamayno hadday mid tahay suurtooymaysa waxba yeelan isku maaragtay isku soo wareegsan hadal hadday micnu tahay nimanka xabar jooga inay leeyihiin annaga Muqdisho oo Soomaaliland ma jirto ee waa gobol Soomaaliya kamida walaalow horta jirba waa Soomaaliya waxaan leeyahay taasi mid ku suurtoobaysa maaha wanaagna ka iman maayo haddii ay taasi ka fikra tahay oo ay ka go'aatay inaad soo duusho oo tira Somaliland baan xoog ku muquurinaya wixii alla ka dhigay noqon difaac baan diyaarna dalkayga waa daafacayna Somaliland dalkeeda way daafacaysaa iyadoo isu dhan oo isku duuban ay dalkeeda daafacaysaa waxaan noo ogol xeerka caalamiga ah waxaan noo ogolka Afrika ka dhaxeeya waxaan noo ogol Ilaahay nagu abuuray dhulkan ee isaga mooyee aanan cid kale ka magacsanay waxaan ku talinaynaa naga talaa Soomaaliya Muqdisho ka talaya waxaan leeyahay waxa inoo dara inaan wada hadalno oo wixii inaga dhaxeeyay aynu kala gurano 6 sano ka warban oo hadal bilownay hadalka kamaydan ahayn daacad kamaydan shaqayn waxa ka dhigtay waqti lumis haddaan Soomaaliland waxaan naga go'aan oo aaminsanahay wixii khilaaf ah kala tirsanayno ama arrin dhex taala inuu ku dhamaano wada hadal haddana wada hadalkii oo leenagu dhexdhexaadiyo oo caalamka iyo jaarka Afrika iyo adduunka cidii doorashay xiyaasaad diyaarna gartaydu waa noo go'antay waa naga cadaa waa noo dhantay mar labaad waxaan ka deeynaa haddii aan soo weerartaa oo xadka ka soo talowdaan anagoo Ilaahay la kaashana waxaan rabnaa sida aan horeba ninka soo nagu soo duulowga adkaan jiray inaan ka adkaano xadkaygiina waa tagayna hadda soo dushaan ogaada taasaan kaga haday qodobka labaad ee ummadda Soomaaliland naga sugaysa haddaan xukuumadda nahay waa sicir bararka waa aafo qaran waa dhibaato inoo taalla waanu ku jiraa waana nala taf dheeraatay hawsheedii waxaan filayaa 2-3 cisho soo socda in laga soo baxayo wixii lagu daweyn lahaa ummadda maanaan ka seexan way nagu cuslaatay way taf dheeraatay waxaan u baahanahay qorsho aan soo noqonin oo qalad ahayn oo laabla ka ahayn laga bogtay cidda khusayso dham ka wada hadashay cidii aqoon la mid ah laga hadlay iyadoo la isku heshiisay qaran ahaan in hawsha waajahno waa hawl culus dhibaatada leedahay xooluhu waa xidhan yihiin halka qolal ka la adagna xoolaha yahay waa dagaal galeena inaynu furo inagana waxa inoo waajibay shicib ahaan dhibaatada dhaqaalaha ee haysta inaynu guddigiis sameeyno oo ugu yaraan aynu yarayno waxyaalaha haysiga ee qaadku koobkay 500 milyan oo dollar ilaa 700 milyan baan ku bixinaa qaadka sanadkii bal maalintii qiyaas dawlad yaray kara qof waliba shaqaam kara waxaad qaadka haddaad labada midood mid ka dhigto qoyskaaga u haraysa waana dhaqaale koris waa koobkay dhaatay kala haysta laba
cimiladii way nagu yaraatay way roobka u yaraaday wax soo saarka u yaraaday gobolladii laga beeri jiray cuntada ee heli jiray 400 milimitir ama 500 milimitir roob ah 300 bay helaan ama 200 milimitir xataa garowga iyo ma baxaan iyo arabakhdii ma bixi karaan way aad yahay magaalada Hargeysa joognaa 10 sano ka hor waxa laga yaabaa 365 maalmood ee sanadka inay heli jirtay 90 maalmood roob ugu yaraan 80 oo sanadkii imanaya ilaa 400 milimitir saddex sano u dambeeyay Hargeysa roobka yeeshaa waa 20 cisho oo waliba aan ahayn roob tayisa oo miro wax soo saara xataa daruurihii dib soo jiray noocyada daruuraha ma jiraan waxaan u baahanahay qaran ahaan inaan fikiro oo dhibaatooyinka dabeecadda inoo keenaysa ka hortageeda iyo sayn u noolaan lahayn ila roobka xoolaha inoo ku xidhaaro way yaraaday dalagii inoo bix jiraad kaana ma baxo waanaanu dhaqanahay dhulka loo joogi doonaa inaanu ka fikiro anagoo sunan dalal badan baa naga roob yar oo laga yaabo inay 15 milimitir sanadkii ay helaan oo haddana nool oo wax dhaqada oo wax beera Tunisia ka mid ah Israa'iil baa ka mid ah qaar badan oo kale ka mid ah waxaan u baahanahay inaan aqoonteena u jeedino war cimilada isbedesha saaran noolaana laakiin taas waa istiraatiijiyada tan cirbarka maanta labada shay soo socda saddex shay wax naga soo bixi doona laba safar oo aan ku tagay labada gobol jaarka ah oo ku inoogu horeeyay ahaa labadaba wada hadal wanaagsan baan dhex maray anagu waxaan u tagnay Soomaaliland waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo eeyuuda idinka jaaran oo xogaala garteeda hana loo qaado Soomaaliland sidan waa ana ku xukumay iyo xukuntidaas waxay keeni doontaa cawaaqib Soomaaliland waxay tirsanaysaa 30 sanado hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay 26 sano dambe dhibaatada gaadhay waa ka weyn ee loo diiday yahay inay tallaabo horumar qaado Soomaaliland lagu amaano dimuqraadiyad iyo nabadgelyada haysa waxay u baahan tahay in lagu abaalmariyo lagu amaano ma baahna waxaan ku codsanay garteeda in la qaado Afrika iyo la gooyo waan ku xoojinay oo ku codsanay jaalkeena horgala sana anigu si socon karay Soomaaliland ana ku xukumo in muqdisho laga dhaahdo oo gorza laalaato ku soconay aad baan isku afgaranay waana ku sugaynaa waana daba joogaynaa tawassul in la galgasha taloo arkiya Soomaaliland qaylada waana halka aan u aragno inay Soomaaliland xoog u saarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelyo ka hadlo iyo wada shaqeyn iyo wixii baa mid afsan kara ayana waa ka wada hadalnay inaga aan la rabaa waxaan caalamka u iibgeynayno hadii baa mid laga dhaxaynayo inuu soo saaro dalka abaara ka jira galbeedka soo bilaabay saddex sano ka hor inuu la waayay iyo jidda galbeedka waxa ka dhacay teediga soo taagan calafku waa dhamaaday xoolaha way dhimanayaan hadda ilaahum baa inoo soo gulman karaa ilaahum baa gacan isku dhan karaa waa ilaahay waa baryada isku tashina waa baahna cimilada isbedeshay dib badan bay nagu haysaa nolosheena dhan bay bedelaysaa abaare waa soo noqonaya kuwa kale way soo noqon doonaa caqligii iyo tamartii iyo istoogi iyo midnimada laga rabo waa gurmada dawladda waxay taagtayda qodobka ugu dambeeya saxaafadda iyo aniga iyo xukuumadda saxaafadda iyo anagu isku shaqaana shaqadina way isku xirantay siyaasadda iyo hogaaminta dalka iyo xukuumadda socon kara mayso saxaafadda aan xil weyn baa haysaan awoodda afraad baa noqoteen labadana mas'uuliyad baa saaran is-ixtiraam baa naga dhaxeeya is-dhageys baa naga dhaxeeya inaan wada shaqaynta isla ogolaano ayaa naga dhaxaysa intaa diyaar baan wadna wixii badmadooda dhexdeeda caawasho soo galan inaynu isu nimaadno ka wada hadlayno saxanayno ogola waa idin ixtiraameynaa qaadariintana inaan tusiinaynaa qaranka hawsha oo haysaan ee weliba dhaqaalaha yar ee ku dhibaataysan imaano idin ognahay mutadawiciin baa marka xaggaa loo eego ragga saxaafadda ka shaqeeya baa u fiirso raggii waaweynaa ee ka horreeyey ee 60kii soo bilaabay 70kii 80kii nin ka tanaaday oo saxaafad lacag ka helay oo ka dhigi ma jiro nin waliba isaga oo madax xarifayo oo xiriirta oo bilaarsan bobesh ku gala ragga magaalada joogo fiirsan saxaafadda ka shaqeeyay
waxaan u qabaa raggiina raggaa ku dayday ee waddada maray inay muwaadiniintihiin dalkooda u shaqaynaya ee aanan guri doonin waad ii qirayataa waad ku garab weynataa mid baan isku afuran weynaa idinku waxaad doonaysaan waxaan halkan ku haya maskaxda iyo warkaan hay inaan la siiyo anna warkaa waxaan arkaa midna xaq igu leeyahay midna aydan igu lahayn qoyska reerka odayga islaantii caruurtooda wax u gaaraa jira jaarku deenu fargeliye ma hataa wanu ka suga kambani ama dukaan ama shirkad daatada ay ku shaqaysay sirteeda xaq bay u leedahay inay ilaashato haddii kala tartami kari mayso dibacad ka gara qaran dhan iyo dowladdina wixiisa oo saxaafadda iyo hawlada shaqay kari maayo caalamkao dhan baa taawo dowlad kasta sirtu hadal warku wuxuu leeyahay intaasoo qaybood warka waxyeelaya danta qaranka guud ee aan ahayn in iminka banaanka la dhigo adigu haddaad heshan inaad dhowrtood qariso weeye aada hayso hadduu qaranka waxyeelayo anna waajibka wixii farayaan sirta qaranka waynu ka simannahay kaama dal sharci labadeenu dalkeenna wixii dhibaayo waynu ka ilaalinaa inaanu taa isla garin baa wanaagsan ta labaad waa waktiga qof walba waktiga ilaahay siiyey isaga u xora anigu goortaad toostay iyo goortaad kamarada soo qaadanayso iyo halkaa tegaysa inaan kuu sheega xaq maaha adna xaqig walad inaad tidhahdo iminka anaa warkaa doonaya ila hadal odaya yeedho waanu dalaga wadshadaa inaynu qodobada ka heshino weeye aad baan idin soo dhaweynayaa